bulshadeenna saxan iyo siyaasiga dhabtii saaka waa wadani bulshadeenna saxan iyo siyaasiga dhabtii saaka waa wadani munaasabadan ballaaran runtii tacsi uga dirayaa xildhibaan cabdiraxmaan talyanle oo xalay ku geeriyooday waddanka Hindiya oo ahaa nin qaali ku ah Somaliland oo aynu naqaanay oo ilaa markii waddanka la aasaasayay ee uu beedka ahaa goobjoogka ahaa waxaan uga dirayaa tacsida ummadda reer Somaliland qoyskiisii ehelkiisii iyo ubadkiisii khaasatan iyo xusbiga wadani uu ahaa lafdhabar ka mid ah ilaahay waxaan u baryayaa inuu naxariista janne ka waraabiyo haddii inta aan dhaafo runtii munaasabadani waa munaasabad qaali ah aniga xusuus badan ayay ii leedahay hadday tahay reer Somaliland iyo hadday tahay gobolkan saaxil oo muddo badan mas'uul ka ahaa xogagaal badanna runtii aanu ahay waxaan aad u salaamayaa guddoomiyaha xusbiga isla markaana musharaxa ku-xigeenkiisa koowaad iyo ka labaad waxa qiimo badan oo halkan aad uga xusayaa inay fadhiyaan wasiiro qaali ahaa oo soo maray Somaliland oo dhowr dawladood oo Somaliland soo maray isugu jiray waxay u badan yihiin wasiiro arrimo gudayaal horta waxaan idin sheegayaa wasiirka arrimaha guduhu wuxuu ka mid yahay wasiirada ugu qiimaha badan ee marka la magacaabo waa ka nabadgelyada iyo jiritaanka ilaalintiisa waa wasiirada ugu qiimaha badan leh mid ayaan idinka warramayaa waxaan aad uga cudur daaranayaa waxaa la yidhaahdaa cabdallow waad raagtay kubiritaanka kulmiye waad ka raagtay bal haddaba maanta waxaan idiin sheegayaa anigu maan raagin waddani waad ka raagtay ayaa la yidhaahdaa oo kulmiyaad in doora mabaanaan mooda intaa inaad ku sii jirayso sababta aan haddaba waddani uga raagan maanta idiin sheegaya horta aniga xaggayga may ahayn waxaan idiin sheegayaa reer Somaliland iyo reer saaxil 6 bilood ee ugu dambeeyay inaan islahaa ku soo biir laakiinse meel aan u maraba waayay min laas qoray ilaa saylac ayaa ku loo haystaa wiiga imika ugu dambeeyay waa kaa guddoomiye hor fadhiya markuu soo dhawaa waxaan ku war dadkii reer berbere reer saaxil waan ku yar raagay aniga maalinteedii maanay imanayninba horta waxaan idiin sheegayaa dubadhuc aniga xaggayga kamuu imanin ee wuxuu ka yimi ummadda reer Somaliland oo tasatay oo aqoon-yahankeedii ganacsatadeedii dhallinyaradeedii iyo caqligeedii isugu geeyey inay ku biiraan xusbiga oo ay u arkaan inuu yahay mid badbaadinaya oo ay kaga baxayaan masiibada maanta taagan ee guri walba u soo gashay waxaan leenahay reer saaxiilow haddaa moodaysaan masiibadu inay keligiin ku dhacday guri wal oo Somaliland way taallaa sicir bararku wuu yaallaa hooyo ooyaysaa way joogtaa ina dhallinyaro ah oo ooyaya wuu jiraa bal waan idiin sheegayaa waxa maanta mideeyey Somaliland ee xusbigan waddani 20 habeenoo isxiga imika waxaan filayaa guddoomiyaha waftigaa la socda inay wareegayeen guri walba way ugu gashay dhibaatadii baa ugu gashay xanuunkii baa ugu galay way dhaqmadeen waxa isu geeyey mid daba jooga iyo mid guda jooga waxa maanta isu keenay maaha qabiil waa muwaadinimo la yidhi wax kale ha joogtee aynu badbaadna jiritaankeenii ayaa cidhiidhi ku jira waxaan leenahay reer saaxiilow mudane iyo marwooyin layga warrami maayo gobolkan waxaa dhiman
iyo waxa isbedelay iyo waxa ku dhacay maaha wax cusub aniga laga sheekeynayo kuma raagayo oo waa ogtihiin 40 cisho ayaa maanta ka haray dhibaatada in Ilaahay naga saaro waxaan leenahay Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa sahanku baladaan isdhegaysano fadlan sahanku reerkiisa been uma sheego sahanku reerkiisa been uma sheego sahanku maaha mid isagu hunguri doonaya mid kursi doonaya waa mid doonaya ubadkiisa xooluhu wata inay tagaan meel naqle laxda maxaa u wanaagsan hasha maxaa u wanaagsan riyaa maxaa u wanaagsan marka uu sugo ayuu reerku guuraa uu raraa laakiin san kuma raro dangaaru leey waxaan idin sheegayaa haddaan sahan tagay oo aanan degdegin ugu taqaanaan inaanan degdegin waxaan soo ogaaday Somaliland inay isugu tagtay xisbiga wadani iyadoo istahaladin badbaadi hunguri iguma wado adduun iguma wado anigoo maayarka u barbara joogaa ayaan hargale risaan gareeyay waan idin sheegaya haddaan adduun doonayo iyo haddaan xoolo doonayo waan joogi lahaa laakiin damirkaygu wixii aan diiday ayaan ku risaan gareeyay maantana waxaan leenahay maantana Somaliland iyo reer saaxiilba maantana waxaan leenahay wadani uguma biirin adduun Soomaalidu way istaqaanaa waan iswada naqaanaa laakiin waxaan ugu biiray ubadka dhabarka lagu sido inay badbaadiyaan waxaan idin sheegayaa mudane iyo marooyin Soomaalidu barigii hore dhaqan bay lahayd marka caaqil laga dhigayo waa la eegi jiray suldaan marka laga dhigayo suldaan waa la eegi jiray mas'uul marka reer loo dhiibayo waa la eegi jiray waxa la oran jiray sabad ma la gashay jid ma la gashay jidiin ma la cuntay waxaan idin sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cali waa niman jid la maray jidiin la cunay sabad la galay dhaqankiisa akhlaaqdiisa asluubtiisa gacantiisa ixtiraamkiisa ciidagayga warrami mayso waxaan ka soo bilownay nolol yar oo adag oo boodhinimo ah oo nolol adag ah oo caruurnimo ah oo aad ismaamulayso oo isugu imanayaan intaasoo kunool nooc oo kala wada akhlaaqa dhaqankiisa iyo asluubtiisa haddaanu korray haddaanu noloshooday gallay intaba habeen muu bedelin waa niman buug ka qori karo ee maaha nin la odhanayo reer hebel ku raac reer hebel bacaankada wallaanu ahayn waa ninan ku hubo inuu yahay gurgurshe hoggaami karaya agoon dhallinyaro daacadnimo muuqda oo aanu qarsanaynin walaalayaal waxaan leenahay mudanayaal iyo marooyin maanta halkaynu joognaa waa la wadoogiyey halkii waddanka laga soo qaadayna waa loogiyey min wajaale ilaa berbera way xidhantay la isweydiin maayo maxaa xidhay maxaa keenay ma aqoon la'aanba ma dhibaato kalaa maxaa keenay waxa lagu ilaaway waddanka dhan oo berbera oo 200 oo gabay laga tiriyey berber wax gol lagu qaaday ka weyn cali jaan wuxuu waa berbera wuxuu walaayada Somaliland waa berbera waadi la huba muu odhan reer hebel badwaan dii sheegaya wuxuu lahaa Somaliland waa hungurigeedii waa lafdhabarteedii maantana waa la tan ganacsadii baa qaylinaysa way xidhantay DB World ayadu ka sheekeeyaan DB World biyaa la cilmiyey la gartay haddii hore mar la doonayo ceeb maaha laakiin waxa weeye dekada barbaray shaqaynaysay yaa qiimeeyey ma 500 milyan bay ku fadhidaa ma 400 milyan bay ku fadhidaa ma 300 milyan bay ku fadhidaa marka shirkadu waxa la galayo waxaaga hore la qiimeeyaa dadkii aqoonta u lahaa way fadhiyaan waxa lagu qiimeeyey 10 milyan oo dilaala ayaa barbara maanta tiirka wax lagu qaado ka weyn waana ka muuqataa taariikhdaana sheegi doonta la iskaga hari maayo hadday dhintaan kuwa dambe sheegay mudanayaal iyo marwooyin
ولا ليال وحسوا كان حسب كان وداني حلكي سومالي لان أقون تلها أي سويمي هل كان عبد القادر جافر يا حل من عبد القادر تردي ورقي شروع ودنك مركوبات كاها أساسي محمد حاج سبراعي قال هدوه بحايا سفر وراقده وسوقري تري عبد القادر ودنك وين كاجسيت هل كان واحد فرديا سلطان سامبير وسلطان دقن iyo wasiiradii ugu horeeyay arrimaha gudaha Cabdullaahi Ciro oo wada garanaysaan oo aan wada shaqeynay baa ku xiga halka Ismaaciil ayaa fadhiya halka waxa Siciid Sulub oo hawlaha guud ida ina kala abtago fariidka way dambeeyay idaaya waan dambaysiisanaya Maxamed Nuur Caraale idaaya waxa fadhiya Siciid Sulub hadiya sharimaka hawlaha guud ما واحد فردي بروفيسور جيدولي ومركن ماير كوزير كبيراي التعليم تلبضه والنقطة تفاحي وجهري أو باري أيها بينها من هذا كم بدأ حفلة ديسي واحد صد مدن سعيد سلو وزير جه هؤلاء جاي وضبوها هؤلاء جود نيمك ويحن بدي طبعا صلوان ماير كهم بجالده هل وراق وليه هي أو دول كجا هذلا أيو يدول دولة لا هي والله أنا حفيز كأقول سوق البلد دي شيء معي إسماعيل واقف وديا وسير كاريما قدوها هل وراق وليه ودول كجا هذلا أيو أما قاعد سدال كسب ولا يجيبوا سوقرين دولة دي هو السنة وين سوقتها هل كان عبد الله عراف وديا وسير كاريما قدوها أيوها وعلمت هل سجن بربركم لها إيمانه ويدي سنين إيمانه سوقرين ما أنتنا هذا الكذا وأختي وهان وعفرديا وسير كاريما قدها محمد نور عراله ونين دير أوفر فرعونه هذا يرسي هذه هي لا يبين أبطال وهايو وأكو يرفعنا يعني أنت وليه وهلنا بل ولا ليال أنت سو مسؤول أنا سو شقي إيا إن كبدن أو ودني كسرتها أو أقويهنا لسوهلي معيو nin hal beebar intu soo qoray dhulka dawladda iyo dhulka barbara amar ku bixinaya maanta laxanteena waynu ognahay waanu iska warhaynaa waa masiibooyinka dhacay walaalayaal waxaan leenahay waxba xisbigii kulmiye aan ka yimi wax badan oran maayo laakiin saaxiibkay Muuse Biixi waxaan leenahay qolada dhaqaatiirta xoolaha ayaa taqaanay ariga marka la dhoofinayo qaar baa la reebo waxa la yiraahdaa cudur barosoolo la yiraahdo ayaa ku jira inaadan waxa kugu badan baroseelaha ayaa kugu badan kowde mid baanse kugu hambalyeynaya on ku sheegaya waxa ku yimi niman isku haybnahay oo korneyla oo furfurcoon oo wax tara daad wixii hore oo dhan gacanta ku haysan ninka مدن ياليه مروين هدان إسرائيل ما أنت هذا وين يسوع هريناه مليار بانش على هاي نحن صاحبه هين أيام فريا ودريا وهول بطين بكا وقدوميها قبلك تقدر صاحبك سمح بلاديك بلاد ودقيستا وأنت صاحبك رماه وحلان هاي واحد شرتي تحانا ورجل يصوت بيين تهذا واحد لو رجل الجوبا على نوح آدم أيها داد سكوتر ترين أي ده ترى كمان أيها وقصر شوابي وعلى ودبات سدا كمان الجوبو داين أبيت كاي أنت دقب سدابات كان درين ثاني والترماحو غير تقدر بينهين تقدر با أبال بدل نقولها أو نقول صوّد كورني ريبر عنا وين وضع يقانا قلت وحنا نقول فرح سنة عادية أو يجا بقينا الساحل بدنا بربرية شيخ تونا نقول ترتمي كريم هذا ينادر كي دولتي ينادر كي وانا وحتري كريه أقول تسكت توكل وحلانا وحن كوجو دري مركب يجا وحن كوحسوستي إلى مركب يرين إن هذا الوركة ينمي بيده ولا جوير حنشري وحن إصلها
وكوان توبي قبل كاد سوقتو وقبل قيمة بدن ولا بدنا بأبال نقوله واحد نصيب واحد شيء إلى هيكو جاي ما أنت وعن كفلاي إلى الأبال عليسو لكن نصيب درو نكد بدي شيء ما جاينا ناس وعم بوبحين وواحد عن قبيتره أدوكنا هذا نفر بلاد شوقين أفر بلاد هذا شوقين أيه إلى هذا نقولي هونه أبى سوتشيد أبى سوتشيد وحلانا هاي ما أنت كونا في مايو حداد ولما مرتبة هذا السنة وعن كهذي دونا بوهود له يارنكي روح أفعد أنا كور رماي ولا ليه صاحبكي صاحب أنا لهيو أنت ما تودا في مايو مو ذلك يمروي وحلانا هاي وحناديات وحصيات حل ديوان هذا يهرج حول دورك يعني سود ورجني مانت ورقي مبادن وان هو تاجر يالفر بدن إلى إليه مركا كل اللي بين الشوقنا أنو دوام مجال وان هريا وإنه يصدم بين ساحل والله قطر تمية برعان والله قطر تمية نكي هني يسقى يو فرقنا دجال ماها رفسد ماها الكلام ماها أفرت العسين واحد غير ودلو حلاني أسلوبته يا دقنك ووحفي عن هذا الكو أخلاق بولي حسب النمو أخلاق بيلاذي دقيسو أخلاق بولي هافلا قادوني هلا